kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay in kooxda al-shabaab laga dilay 15 xubnood kadib howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen shabeellaha hoose ciidanka sirdoonka qaranka ee NISA kooxda al-shabaab oo qiratay in uu geeriyooday Maxamed Xasan Cumar Abu Cabdiraxmaan oo ka tirsanaa kooxdaasi iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka warbixisay sababta uu u geeriyooday Maxamed Xasan Abu Cabdiraxmaan wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ciidanka xoogga dalka iyo al-shabaab ku dhaxmaray deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud tirada dhimashada iyo dhaawaca iyo xaaladda guud ee deegaankaasi ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay shaacisay maanta in howlgal qorsheysan lagu dilay ilaa iyo 15 xubnood oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu shaaciyay in xubnahaasi lagu dilay howlgal qorsheysan iyo duqeymo ciidanka gaarka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ka fuliyeen deegaanka Buulamadiino oo ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose ciidanka gaarka ee NISA ayaa sidoo kale waxa howlgalkan ay kala kaashadeen saaxiibada caalamka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xukuumadda xubnaha shabaabka ee laayay ayaa si gaar ah waxa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay sheegtay inay ugu daba jireen iyada oo firxadkii ka badbaaday howlgal 23kii bishan laga fuliyay deegaanka Buulamadiino ay ahaayeen kuwaasi oo lagu dilay ilaa iyo 49 dagaalyahan oo ka tirsanaa isla kooxda ciidanka gaarka ee hay'adda NISA iyo saaxiibada caalamiga ayaa sidoo kale burburiyay gaadiid ay ku baxsanayeen dagaalyahanada shabaabka iyo hubkii ay wateen howlgalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo kooxda al-shabaab mas'uul sare uu ka geeriyooday kaasi oo lagu magacaabo Xasan Cumar Abu Cabdiraxmaan shabaab oo war soo saartay ayaa ku sheegtay in Abu Cabdiraxmaan oo madaxda gobolka Banaadir u qaabilsan al-shabaab uu ku geeriyooday Jubbooyinka iyadoo aan la shaacinin sababta dhimashadiisa ayeeshee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa war ay soo saartay ku shaacisay in Abu Cabdiraxmaan uu u dhintay dhaawac ka soo gaaray howlgal ciidamada qaranka ay ka fuliyeen xadka u dhaxeeyo labada shabeelle dawladda ayaa sheegtay in ninkaasi dhaawaciisa ay geeyeen kooxda al-shabaab magaalada Jilib ee gobolka Shabeellaha dhexe halkaasi oo uu geeriyooday daryeel la'aan caafimaad iyo dhaawaciisa oo halis ahaa qoraalka ka soo baxay dawladda federaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxda al-shabaab ay ku qarinayeen horjoogahan guryo ay leeyihiin dad shacab ah oo ay ku qasbeen waxaana ay ku guuldareysteen ayaa la yiri inay u helaan adeeg caafimaad maadaama uu qabay dhaawac culus oo soo gaaray kasokow inuu ahaa madaxda sare ee kooxda al-shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in Abu Cabdiraxmaan uu madax ka soo noqday qaybta marin habaabinta dhalinyarada isagoo mas'uul ka ahaa maskax doorinta dhalinyaro fara badan dawladda ayaa intaasi ku dartay inuu ahaa horjoogihii labaad ee heerkiisa uu sareeyo oo laga dilo al-shabaab 2 bilood gudahood xilli ciidamada dawladda ay ballan qaadeen inay sii wadaan ugaarsiga madaxda sare ee kooxda al-shabaab dhanka kale wararka naga soo gaarayo deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud oo muddooyinkii dambe gacanta ay ku hayeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu maanta ka dhacay dagaal culus dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen deegaankaasi weerar khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac leh sababay dawladda Soomaaliya oo war ka soo saartay weerarkan ayaana sheegtay in al-shabaab si weyn lagu jabiyay dagaalka ka dhacay deegaanka Qaayib isla markaasina ciidamada ay fashiliyeen rabitaankii kooxdaasi waxaa la fashiliyay 3 qarax oo al-shabaab ay doonayeen in ay dhibaatooyin kala duwan ku geystaan mar kale waxa ay ku jabeen Qaayib maanta ilaahay ayaana mahadsan kadibna mujaahidiinta beeniyay
doonistii khawaariijta ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala. al-shabaab ayaa dhankooda sheegtay inay qabsadeen deegaanka qaayib ayna laayeen inta badan ciidamadii halkaasi ku sugnaa, iyagoo xusay in ciidamadii halkaasi joogay ay wada laayeen, iyagoo xusay inay qabteen gaadiid dagaal iyo saanad militari oo dagaalka ay kaga furteen ciidamada huwanta. sheegashada shabaab ayaa waxaa durba beenisay dowladda oo sheegtay in deegaanka qaayib si buuxda gacanta ay ugu hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo muddooyinkii dambe halkaasi ku sugnaayeen. ilaa iyo hadda ma jirto warar madax bannaan oo ka warramayo sida ay wax u dhaceen, wuxuuna imanayaa weerarkan 2 toddobaad kadib markii al-shabaab sidani oo kale ay u weerareen deegaanka qaayib, iyagoo hore u burburiyey anteenadii adeegga isgaarsiinta u fududayso deegaankaasi. ugu dambayntiina daawadayaal, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya Mukhtaar Roobow Cali Abuumansuur ayaa sheegay in kooxda al-shabaab dhibaato ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed loona baahan yahay in kooxdaasi lala dagaalamo. wasiirka oo hadal ka jeedinayay masaajid ku yaallo degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo uu ku tukaday salaadii Jimcaha ayaa sheegay in waqtigan ay muhiim tahay in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab. waxa uu ka digay in xubno ka tirsan al-shabaab guryo laga kireeyo, isagoo xusay in kooxdaasi dhibaatooyin kala duwan ay ku hayso ummadda. walaalayaal, marka duruuftaasu waxay u baahan tahay in loo midoobo, isku aragti laga noqdo, dhinac looga soo jeesto, la iska dhiciyo, war meel kale iska dhaafe masjidkii adoo rukuucsan haddaad baqayso qof rukuucsan uu cabsanayo rukuuca inuu ku dhinto, qof sujuudsan uu baqayo sujuudda inuu ku dhinto, laga yaabo khatiibkii inuu baqayo khudbada intuu dhammaynayo, oo laga yaabo imaamku inuu cabsanayo intuu salaada dhammaynayo, oo khawfkii iyo dilkii masjidka gudihiisa la soo geliyey. ma wax kala dhiman? والفساد انت اسكوين ما قرنيسان يا waxa walaalayaal markaa nagu waajib wada ah taas inaan garanno, isku dhinaana aan ka istaagno. maalin hoogaa laga joogo masjid weyn kan leeg ama ka weyn oo amirna oo waqti maalmo ka hor buuxay oo jumcada iyo jamaaca lagu oogi jiray baan tagay, isagoo burburka iyo miraayadaha iyo dhiigga iyo waxa dhaxyaala aad yaabeyso. مسجد كان وقرنيسان وايدين دويها واكي ماشي وزارة لقرحي أكتر مسجد كشي عبد الحي وقرنيسان صوماها هدان تال لقهر تجين ويدتكو إسبايسان أو إسكب عنين كانوا نوايكوس وصعوتا مثل ما وحالي لدينك غير كيسو لوحي رواه أدنا سوقيسو مقويسان اينا مثل إسكب عنين لمك يا رمتي وحا سوكالي وحا كودي رنكرة إذكر كما ديران كرته خوارج وما كل ديران كرته سيدنا عمر واحد لي أبو لؤلؤ المجوسي علي خوارج تدلين ومسجد كود دلين علماء بدنا يجا تاسو كلا مساجد رنتي كود دلين مساجد إلهي يقول لي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض حديدتك قارك لو دفاعين أو لسكد إن كو مفسدين تا dhulka ayaa fasaadaya, ardadu way fasaadaysaa, fasaadkii ay ka mid tahay. masjidka deriskeena qarax baa lagu soo xiray oo lagu soo dumiyo waa xiraya, inta kan laga xiraayo maan sugayna ya runtii waa iska musiibo. waxay u baahan tahay marka hore in ilaahay gacmaha loo hoorsado. aayadii kalena waxay ahayd walawlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lahuddimat sawaamicu وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هدان هو مفسدين تا وحق عنت قبتل هلين مساجد كان هذا مسجد كشي عبد الحي هذا قدام بيزي بربريان وحرين وجمع الآن وياي جمعان موهين لها قاجي لكن تيك الرئيسي بان تجي وحرنا تاس هذا بعدي أو كلا أيها ضعيفة. إخواني في الله مركة waxaa waajib nagu ah dhammaanteena inaan meel uga soo jeesano war qof muslima
oo gurigiisa iyo dukaankiisa jooga dhahaya lacagtaada keen haddaad keeni weydina dhiiggaaga ii bannaan waa ku dilaya ganacsatadii dukaamo badan dadkii ganacsanaya oo dhan shirkado kulli waxaa la meel hebel imow intaa keen haddaadan keeninna waa ku dilaynaa dariskiisaa marora la dilay ilmahooda ogoontoobeen uu u jeedaa markaa isagoo orda ayuu tegayaa inkastoo hadda la manciyey la yidhi lama tegi karo dowladdu ay diiday in la tago saddexdii ma badbaadinayaan war adi meel kale iska dhaaf masjidka haddii maanta baqdin loo soo geli laayahay ka warrama dad qaarkoodaa laga yaabaa xataa markaan annaga soo galno masaajidda inay hoosta naga habaarayaan ay leeyihiin warkaan qarax baaba soo daba socda ayaa soo geliya meesha annaga goonina looma necbee waxa iman doonay ka baqayaan mise maaha ya taas marka waxaan uga bixi karnaa kan balaayadu wato inaan iska celino bas inta kalena ay nabad ku noolaato ayaa loo baahan yahay guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo